madaxda sarsare xisbiga kulmiye ayaa waxa xalay kulan balaaran ay kula qaateen hotel Raise magaalada Boorama dhalinyarta 6 gobol ee Soomaaliland oo iyagu markaasi wax ka barta magaalada Boorama dhalinyartaasi ayaa iyagu sida ay sheegeen waxa ay halkaasi kaga warbixiyeen kuwii u hadlay 6 gobol ee ay Soomaaliland ka kooban tahay in ay daraaseeyeen barnaamijka siyaasadeed ee xisbiga kulmiye oo doorashada kaga qayb galayo kaasi oo dhalinyartaasi ay sheegeen in ay u arkeen in uu iyaga markaasi anfacayo iyagoo isla markaasi madaxda xisbiga kulmiye ka codsaday in aanay ka dhigin barnaamijkooda wax warqad uu ku qoran ee ay kaga dhabeeyaan oo ay fuliyaan hadii ay ku guuleystaan halkaasi madaxdii ka soo qayb gashay oo musharaxa madaxweyne ku-xigeenka iyo madax sarsare oo kale xisbigaas ay kamid ahaayeen ayaa iyaguna hadallo ka soo jeediyay bogaadin iyo ammaan ah waxa kale oo ay sheegeen in aanay barnaamijkoodaasi aanu noqon doonin mid isagu warqad uu ku qoran ee uu ahaan doono markaasi mid ay fuliyaan Ismaaciil Muumin Aaro madaxda sarsare xisbigaasi kamid ah ayaa mar uu arrimahaasi ka hadlayay waxa uu yiri aqoontiyo waxbarashaduna waa tahay isku kiinkeentay fikir isku mid ah idinkoo 6 gobol ah qabiil iskuma kiinkeen aqoon iyo waxbarasha isku kiinkeentay ka lagaga baxayaana waa kolkay dhalinyaradu go-aan gaadho ee ay inay jebiso degidka markaad go-aankaana ku dartaan haddii laydin siiyey fursaddaa annagu aan jecelahay inaan idin siino because waxaad tihiin generatorkii awooddii fiyuulkii qaranka waa dhalinyarada waa awood waa tamar wax dhaqaajisa sida oo kale Cabdiraxmaan Cabdullaahi Saliic oo musharaxa madaxweyne ku-xigeenka xisbigaas ayaa isaguna arrimahaasi markuu ka hadlayay waxa uu ka warbixiyay dawladda ay rabaan inay dhisaan nooca ay noqon doonto waxa maanta dalka haysata abaarimo haysatay aan xumo haysata waxa koowaad sameeyna shaqaawus maxaa loo sameeyaa waxa la waxa dhiirigelinaa private sector kala yani shaqada gaarka kandariyada maartay in waxaan dhiirigelinaa in sidii maalgelin shisheeyuhu dadka u maalgelin lahaa weelkeedii oo qorayna oo shuruucdii dad ku dhiiran lahaa ammaanadii xisaabtan dhab ah transparency in abuurno si ummadda maanta qaniimada la warwareegaysa caalamka ay noogu soo dhiirato oo wixii laga awoodo lagu baalgeliso halkan ay ka abuurto shaqooyin fara badan qodobka kale ku xiga waxa weeyaan xisbiga kulmiye wuxuu taageeyahay midnimada iyo cadaaladda iyo horumarka marka qodobka u muhiimsan waxa weeye cadaaladda waxaan ku dhaqaynaa dalka cadaaladda waa nooc badan tahay cadaaladda qofka weeyaan kow ra'yigiisu xor noqdo Xasan Ciise